leeyihiin islaamka sababta uga soo baxnaanada maxaa muslimka naga soo bixiyay bal gadaal hadii loogu noqdo ya sababta islaamka uga soo baxna maxay ahayd dad la gowracay ayaan aragnay magaca Allah lagu gowracay qoftani leedahay diinta islaamka waxay ugu baxday waxa loo soo diray nin la gowracayo marka waxa isku daynayaa in aacawiyo qoftani iyada iyo odaygeediba sida ay la muuqato dadkani dad wax akhristo ma dad oo kitaabkoodii akhriya uma eka bal maanta waxa isku daynayaa in hal meel ka soo qaato kitaabkoodii Bible-ka oo idin tusiyo waxa ku jiro sharciga ku noqoshadiisa cutubka 20aad markaad magaalo ugu soo dhawaataan inaad la dirirtaan waxaad u naadisaan war nabdeed oo hadday jawaab nabdeed idin siiyaan oo ay albaabka idinka furaan waa inay dadka magaaladaas dhexdeeda laga helo oo dhammu addoomo idiin noqdaan oo ay idiin wada adeegaan oo hadday idinla nabdi waayaan laakiinse ay doonayaan inay idinla diriraan markaas waa inaad hareeraysaan oo markii rabbiga ilaahaynahu magaalada idiin soo gacan geliyo dadkeeda labka oo dhan waa inaad seef ku wada laysaan laakiinse dumarka iyo dhallaanka iyo xoolaha iyo waxa magaalada ku jira oo dhan xataa wax kasta oo laga dhacaba waa inaad booli ahaan u qaadataan oo waa inaad cuntaan xoolihii aad cadaawayaashiinna ka dhacdeen oo rabbiga ilaahayna uu idin siiyey oo sidaas waa inaad u wada gashaan magaalooyinka idinka fog oo aan ahayn magaalooyinka quruumahan laakiinse magaalooyinka dadyowga rabbiga ilaahayna uu dhaxalka idiin siiyey waa inaydnaan wax nool oo neersada dhexdooda ku reebin haddaba ikhwaani hadalkan waa hadalkii ilaahi weeyaan yaa way qofka lala hadlaayo waxaa lala hadlooyaa muuse iyo qoomkiisii marka waxaa lagu yidhi marka magaalo u soo dhawaataan inaad la dirirtaan waxaad u naadisaan war nabdeed waa hadal fiican weeyaan haye hadday jawaab maaragtay idin siiyaan oo jawaabtaas tahay war oo maaragtay nabdeed oo heshiis maxaa samaynaysiin waxa magaalada ku nool dhan waxay noqonayaan addoomay noqonayaan laakiin fiiri qur'aanka wuxuu leeyahay waa cagsigii weeyaan waxaa la leeyahay وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن جنحوا للسلم هشيس ستيا أبايران فاجنح لها أدغنا أباير وتوكل على الله إلهي تلسارو taasi ee macnaheeda ee tahay dadkaasi hadday ku siiyaan war nabdeed oo heshiis u beeraan la heshii maxaa keenay dhagarta maxaa keenay khiyaanada dad oo maartay war nabdeed ku siiyeen haddana oo ka dhiganaysid addooma maxaa keenay taasi waxaa la yiraahdaa dhagar لأجل ذلك إلهي وحوليه فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين فما استقاموا انت توسايان لكم إذن كإذن توسيين وأيان دبات إذن كوين فاستقيموا إذن توسنادا لهم إياك إن الله إبوين يحبوا وحجعليهاي المتقين تدك إسلالية أي إبجعليهاي إلالية بلماذا وخيانية لغيرها قلينو marka meesha waxaa ka cad kitaab wuxuu amrayaa ballamada ilaaliya dhagarna ha ku dhicina kitaabna wuxuu farayaa dadkaasi oo war nabadeed ku siiyeen oo ilbaabaha kuu fureen waxaa ku samaysaa dhagar khayaanay kulligoodii waxaa ka dhigataa addoomo marka daawade waxaa halkan ka dareemi kartaa farqiga u dhaxeeyo diinteena suuban iyo kitaabka Bible-ka taasi waa qodob qodobka labaad wuxuu yahay kaba soo qaad magaaladaasi waxay diideen war nabadeedka way diideen oo dagaal u taagan yihiin uu leeyahay Bible-ka
waa inaad hareereysaan qoladaasi markaas ka bacdi rabbiga ilaahigiina oo ahaa magaaladaasi markuu oo idinsaba gacan geliyo maxaa lagu samaynayaa baibalka wuxuu leeyahay dadkeedii labka ah oo dhan waa inaad sayf ku wada laysaan sidaas buu leeyahay baibalka haddaa keli islaamka haddaa ka soo qaata keli fatxi maka ayaa ku filanba nebiga sala allahu calayhi wasalam markuu galayay maka dadka oo ku nool maka nebiga ammaan buu siiyey nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi man dakhala daara abi sufyaan fahuwa aamin man aglaqa baabahu fahuwa aamin buu yidhi waman dakhala almasjida fahuwa aamin buu yidhi taas waxay ku caddaynaysaa islaamka in oo raxmad yah baynamaa kitaabka baibalka wuxuu leeyahay dadkeedii labka ah oo dhan waa inaad sayf ku wada laysaan buu leeyahay ka soo qaadba in dadkaasi ee ahaayeenba dad oo dagaaltamayaan islaamka ma dhahaayo wax lab la dhahaayo dhan oo magaaladaas ay joogaan dhan dhulka dhiga islaamka arrintaani uu kala qaaday dadka ee dagaaltamayaan ee dagaal ku jiraan oo seefta wataan oo dagaaltamooyin waa dadkaas wey dadka lala dagaaltamayo la-anna markaa leedahay labka oo dhan ee magaaladaas joogaan waxaa maaragtay soo galaya meesha waxa weeyaan odayaalka meesha soo galayaan dad oo wax galabsanina meesha soo galayaan waxaa meesha soo galaayo dad oo maaragtay iska cibaadaysanaya shaqo ku leheenba maaragtay waxaan dagaalkan iyo waxaan iyo shuqladan shaqo ku leh odayga ooba waxba maaragtay awood leheen oo quwad leheen intaasi dhan oo islaamka maaragtay uu ka saaray wuxuu yidhi laa taqtuluu duriyatan walaa casiifan nabiga sala allahu calayhi wasalam yidhi fawaqafa calayha rasuulku waa istaagay sal slam faqaala wuxuu yidhi maa kaanat haadihi tani ma ahayn qatila mid dagaalantay qof dagaalamay maaha oo dil iyo waxyeello geysanaye maxaa loo dilay faqaala liaxadihim wuxuu ku yidhi midkood qul lahu waxaa ku tidhahdaa laa taqtuluu hajrina durriyatan ilma carruura walaa caasiifan min dadka ijaar u ah oon reeraha ka dhalaninoo isagu dadkan dagaalka iyo dhibka wadaan hayna xoola raacis ka ahaa hadirina rawaahu axmedu wa abu daawuud waxaana laga faa'iidaystay xadiidkani dadka aan la dilaynin hore waxaa lagu soo daray walaa casiifan sababtoo haayada dagaalka loo wado iyo dadka ujeeddada dhibka wada ee dagaalamaya ninkan kuma jiree iska xoolo jir weeye muhiimadiisu ay tahay xoolaha inuu raaco waxna ka qaato marka casiifka qofkaasaa la yidhahdaa soomaalida qaarna qawsaarka ay u taqaano waxaa kaloo laga faa'iidaysanayaa dadkaa sababka loo dili la'yahay inay tahay maa kaanat haadihi lituqaatil amaa ninka duuqa ahi waxaan leenahay ilmaha carruurta qofka dumarka walaa casiifan xadiidka oran ku soo marray ninka iska ijaarka qaadanaya isagu dan kale lahayna xoolihiisa cayrsanaya haddii la yidhi aan la dilin ciladana xadiidka hore sida laga fahmaya aan nidhi maa kaanat haadihi lituqaatila wey qofkaas inuuna dagaalamaynin qof dhib iyo dagaal ku haya dadkana aanu ahayn ninka duqee gaboobay haddaanu dagaal iyo dhib ku haynin oo awood iyo tabarteeda aanu lahayn isna waa looga qiyaasanaya waxaa looga qiyaasanayaa kale mida baabka uu ku sheega war ruhbaani uu yidhi haddaba walaa asxaabu sawaamici dadka suufiyada meelaha isaga jirayaan la laynin waxaa loo yidhi iyaguna dad dagaalamaya dagaalkana qayb ka qaadanaya ma aha waa ninkaaba duni iyo adduun iyo dagaalkee toona iyo cid adkaatay cid qabsatay aan dan ka lahayne duurkiisaa cibaada isaga jira baatilba ha noqotay cibaadadiisa aan waxba ka jirin oon diin saxa ku salaysnayna ninka haddaba maa kaana lituqaatila qaacidadii ahayd iyo cilladii ahayd baa ku rumoobaysa oo isna qiyaasan buu ku sugnaanaya sa hore usoo sheegnay haddii ay dhacdo inaad qolyo ishayseen qolyihii aad ishayseen ayaad heshiis gasheen heshiis u fiirso sheekada heshiis baad gasheen qolyihii aad ishayseen waxaad ku heshiiseen inay si nabada lagu wada noolaado markaasaa waxaad ka dareenteen qolyihii innakii muslimiinta ahaa sirdoonkeennibaa waxay soo xaqiijiyeen inay nimankii gaalada ahaa ee heshiiska nagula jiray ama cadowgii heshiiska nagula jiray berrito inuu dagaal soo qaadi doonaan berrito inay dagaal soo qaadi doonaan sheekh u fiirso qofka bini aadankaa muxuu samayn lahaa isla markiiba weerar qaadi lahaa okay qur-aanka haddaba sidaa kuma leh qur-aanka kuma laha isla markaaba weerar qaado kuma laho wuxuu ku leeyahay wa imaa takhaafanna min qawmin khiyaanatan fambid ilayhim calaa sawa haddaad dad khiyaamo ooga cabsato ood ka yaabtay inay ku khiyaamaan ood u aragtay inay khiyaamo soo wataan oo sirdoonka ay soo xaqiijiyaan waraaqad u dir inbid ilayhim calaa sawa waxaad tidhahdaa war ballankii aan isku ogeyn iyo hawshii aan isku ogeyn waan tuurnay khiyaamaan idinka ogaanay wixii hadda ka dambeeya dagaalkiiba halkaa ka sii socday ogaada saa maxaad u samaynaysaan maxaa maad beri aroortii ciidanku inay dagaal ku soo qaadayaan haddaad ogaataan ma caawa dagaalka ku qaadaan ilahi wuxuu leeyahay in allaha laa yuxibu alkhaa'imiin ilaahay ma jeclo khiyaamada ma jeclo khaa'imiintana ma jeclo si toosa ugu sheegay fambid ilayhim calaa sawa war annaka dagaalkii waan maqalay tuugnimadiini dagaal baan soo qaadayna la socda laakiin habeenkii in la miro ma bannaano diinteena halkana hortayda fariska uu ku qoranayo uu baybalka ka akhrinayo waxaa weeyaan kolka horeeto nabdaadin
iyo war wanaagsan u sheega marka idiin soo gacan galaan wada adoonsada hadda nabadgelyada ay u carareen nimankan maaragtay fiiri hadii diinta aqaani markaas waxay ku leeyihiin intay meelaha soo fariistaan waa diinta nabadgelyada waa diin ma aha waxa waa waxay dad ku falaadeen waa khiyaamo wey waxaas waxay ku jawaabi karaan maaha youtube bay u dacwoodeen marka daawada meesha waxaa ka cad farqiga weyn u dhaxeeyo diinteenna suuban iyo kitaabka Bible-ka bal islaamka wuxuu qabaa wax la yiraahdo aadaab jihaad qofka oo muxaaribka ah ayaa waxaa loo sameeyay aadaab iyo shuruud gaalada waxaa loo qaybiyay mid xarbi ah oo dagaal kugula jira ka adig iyo wixii aad kala heshaan baad leedahay isla ka laftiisa xarbiga ee dagaalkiisa lagu ogolaaday ayaa waxaa la yiri dumarkiisa ha dilin caruurta ha dilin da'da ha dilin waxaan dagaalami karin ha dilin kii dagaalkiisa lagu ogolaaba aadaab loo sameeyay dawaabid iyo shuruud loo sameeyay diinteenu u dejisay بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون